xisbiga wadani oo maanta war qoraal soo saaray ayaa waxa uu ku sheegay in hogaamiyaha xisbiga wadani mudane Xirsi Cali Xaaji Xasan uu ka qayb galay kulan ka dhacay qasriga madaxtooyada Jamhuuriyadda Soomaaliland maalintii shalay oo taariikhdu ahayd 26 bishii 8 2019 kulankaasi oo dhexmaray madaxweynaha iyo xisbiyada qaranka Soomaaliland ayaa waxa lagu sheegay in fadhigaasi ahaa mid lagaga wada hadlayay si aanbaqaadka heshiiska saddexda xisbi qaran hore ugu galeen madaxtooyada Somaliland 27 bishii la soo dhaafay war saxaafadeedkan waxa lagu yiri madaxweynuhu waxa uu qiray inuu ixtiraamo heshiiska dhexmaray saddexda xisbi qaran halka xisbiyada mucaaradkana ay madasha si weyn ugu muujiyeen dareenkooda ay ka qabaan in si khaldan oo baalmarsan sharciyada dalka la isu hortaagay heshiiska saddexda xisbi qaran hore u galeen kaasi oo mucdiisa ugu weyn yahay in xubnaha komishanka doorashooyinka qaranka oo hore u ahaa 7 xubnood laga dhigo 9 xubnood labada xisbi mucaarad ayaa waxay madaxweynaha si waayeeltinimo ugu soo jeediyeen ayaa la yiri in heshiiska xisbiyadu ay madaxweynuhu meel mariyo maadaama uu mas'uuliyadda doorashada dalku isaga guudka u saaran yahay sidoo kalena madaxweynuhu waxa uu dhankiisa garwaaqsaday ayaa war saxaafadeedkan lagu yiri dareenka xisbiyada qaranka isagoona ballan qaaday inuu qoraal ku soo gudbin doono mowqifkiisa ku wajahan arrintan ay hogaamiyaasha labada xisbi kala hadleen isagoona tilmaamay inuu tixgelin weysiin doono soo jeedinta xisbiyada mucaaradka xisbiga mucaaradka ayaa war saxaafadeedkiisan ku sheegay inuu cadeynayo inaanay jirin wax heshiis kale ah oo la isla gaadhay haba yaraatee waxaana xisbiyadu wali sugayaan ayaa la yiri madaxweynaha qoraalkiisa uu ballan qaaday in uu soo diri doono dhawaan dhanka kale labada xisbi ee UCID iyo wadani waxay madaxweynaha si weyn uga hadleen xalinta mushkiladaha ka taagan gobolada bariga dalka iyadoona loo marayo dariiqa wada hadal iyo marin nabadgeliyo si Somaliland dhaqanka u lahaan jirtay kula soo caanamaashay madaxweynaha ayaa la sheegay inuu ka muujiyay dareen wanaagsan in sida ugu habboon uu tixgelin doono meel marinta qodobada laga wada hadlay ugu dambeyn xisbiga wadani ayaa sheegay inuu mar walba diyaar u yahay doorasho waqtigeeda lagu qabto oo dalka ka dhacda sidoo kalena waxa uu xisbigu cod dheer ku sheegay in wax kasta oo caqabad ku ah doorashooyinka dalka in wada hadal iyo afgarad lagu dhameeyo war saxaafadeedkan xisbiga wadani soo saaray ayaa waxa ku saxeexan garyaqaan Barkhad Jaamac Batuun afayeenka guud ee xisbiga wadani